yaabo aysan dadka intooda badan ka ogeyn taariikhda ku gadaaman halgankii xornimada doonka iyo marxaladihii la soo maray xilligii gumaysiga tusaale ahaan aad bay u yar yihiin dadka xusuusta in maalinta taariikhda Soomaaliya baalka dahabiga ka gashay ee 1 Luulyo 1960kii ay ahayd maalin Jimco wixii xilligaas ka dambeeyay maalin Jimco ayay ku soo aaday 1 Luulyo sanadaha kala 1966kii 1977 1983 1988 1994 2005 2011 iyo 2016 iyo caawa oo Jimco isla markaasna 1 Luulyo 2022 waxaan rabaa inaan wax yar ka sheekeeyo maxay Soomaaliya muhiim ugu noqotay gumaystayaashii reer Yurub xuduudaha Afrika waxaa lagu kala asteeyay shirkii ay quwadaha gumaystayaasha ku yeesheen Berlin oo ah dalka Jarmalka isla markaasna dhacay 1884 shirkaas ayaa lagu qaybsaday qaaradda Afrika sanadkii 1869kii markii la furay marinbiyoodka Suez Canal waxaa sii kordhay istiraatiijiyadda Soomaaliya ee ku aadan dhinaca isku xirka caalamka reer galbeedka ayaa ku baraarugay in Soomaaliya ay xudun u tahay socdaalka Afrika iyo Aasiya sanadkii 1884 Maraykanka iyo 13 dal oo reer Yurub ayaa shir ku yeeshay magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka shirkaas oo socday ilaa sanadkii xigay ee 1885 waxay ujeedadiisa ahayd in dalalka ay kala qaybsadaan qaaradda Afrika Soomaaliya kaligeed waxaa loo kala qaybiyay 3 gobol oo ay kala qaateen 3 waddan oo reer Yurub goboladaasi waxaa loo kala bixiyay British Somaliland Italian Somaliland iyo French Somaliland xilligii uu halganka xornimo doonka socday ujeedadu waxay ahayd in dib loo helo 5 Soomaaliyeed oo loo yaqaanay gobolladii Soomaali galbeed NFD waqooyi koonfur iyo Djibouti markii uu gumaystaha ka baxay waddanka gobollada waqooyi gaar ahaan iyo koonfurta way midoobeen waxayna la magac baxeen Jamhuuriyadda Soomaaliya laakiin Soomaali galbeed waxaa lagu daray Itoobiya halka NFD-na ay qaadatay Kenya Djibouti oo xilligaas aan xornimo qaadan ayaa iyaduna xornimadeeda qaadatay 1977 calanka Soomaaliya ee maanta aan haysanno waxaa hindisay aqoonyahan Soomaaliyeed oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Cawaale Liibaan naqshadda calanka buluuga ee xidigta cad ee 5 gobol ee Soomaaliya ay dhaxda uga taalo waxaa markii ugu horeysay la soo bandhigay 1952 12 Oktoobar 1952 ayaa la hindisay calanka labadii sano ee xigtayna dood ku saabsan baa ka jirtay qaramada midoobe balse 1954 markii Cabdullaahi Ciise uu tagay qaramada midoobe ayaa la ogolaaday calanka Soomaaliya calanka Soomaaliya xilligaas ayaa la ogolaaday 1954 dawladdii maxmiyadda ahayd ee Cabdullaahi Ciise uu hogaaminayay ayaa ku shaqaynaysay 6 sano calankaas ilaa laga soo gaaray 1960kii oo Soomaaliya ay noqotay qaran jiro isla markaasna ay ka baxday gacanta gumaystayaasha xorriyadda laguma gaarin bilaash miraha xorriyadda waxaa lagu helay oo lagu waraabiyay dhiig dad Soomaaliyeed ayaa u dhammaaday in dalkan uu xor noqdo waxaa kaalin ka qaatay mugleh in dalkeenna uu qaran noqdo haweenka Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso Xaawo Taako haweenka Soomaaliyeed ayaa ragga la garab taagnaa gargaar cunto raashin iyo dhiirigelin isugu jiro sidoo kale dalka Soomaaliya markuu xorriyadda qaatay wuxuu noqday dal awood leh isla markaasna ciidan iyo quwad leh
laakiin shisheeyaha oo arrinkaas diidanaa ayaa qarankannaga siduu u burburi lahaa muddo badan ka shaqaynayay dalkannagana wuxuu burbur soo gaaray dii laakiin dib ayay dawladnimada soomaaliya u soo dhisantay laga soo bilaabo 2000 dawladdii lagu soo aasaasay jabuuti carta wixii intaas ka dambeeyey waxaa kaloo la dhisay dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa mudane cabdulaahi yuusuf ee dalka kenya lagu soo dhisay imbagaati taasoo 2004 dalka ka shaqo bilowday waxayna ku shaqaynaysay magaalada jowhar kadibna baydhabo ayay ku shaqaysay wixii intaas ka dambeeyey waxaa dalka madaxweyne ka noqday mudane sheekh shariif sheekh axmed oo hayay ilaa 2012 waxaa intaas kadib soomaaliya ay ka baxday ku-meelgaarnimadii waxaana madaxweyne ka noqday mudane xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha annaga hadda qaranka soomaaliya hoggaaminaya waxaa madaxweyne xasan sheekh ooga dambeeyey mudane farmaajo isla madaxweyne xasan sheekh ayaa ku soo noqday maantana madaxweynaha jamhuuriyadda ah waxaan halkaan hambalyada la wadaagaynaa madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaare xamse waxaan sidoo kale ugu hambalyaynayaa ummadda doolow soomaaliya maanta halka ay joogaan in ayaga ay keeneen nabadda taallo in ay ka shaqeeyeen guusha ay ku taagan yihiin in ay ka hormarsan yihiin koonfurta soomaaliya dhammaanteed guushaas waxaa guul ay leedahay shacabka dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada doolow soomaaliya dadka doolow soomaaliya waxa doolow loogu daray soomaaliya waa dad aan qabyaalad iyo qurun aqoonin laakiin waxaa jiro kuwa doonaya doolow inay gacanta ka bixiyaan isla markaasna har iyo habeen ku fikirayo inay doolow dhiig ku daadiyaan shacabkana gumaadaan xorriyaddana ka qaadaan kamana aqbalayno sida maanta doolow ay xor u tahay ayay xor u ahaan doontaa shalay wixii dadka lagu haayay ee in mataqaanaa dad masaakiina la laayo ma soo noqon doonto doolow xor ayay ahaanaysaa siday tahay ahaan doontaa insha allahu guulaysta soomaaliya ha noolaato